Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ee asxaabta adduunka meel walbo joogtiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Maanta waxaan rabnaa inaan 3 qodob aan aan meeshaan aga hadalno iyo waa fikirka aan qabno ummaddaynana inaan la wadaagno rabno gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed golahayna sharci dejinta iyo dowladayna. Qodobadaas 3daas qodob waxa waa isfaham waxaan fahamnay in aan hal meel aan wax isula wadno. Shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda dowladda way u cadaatay waxa ay tahay. Golaha sharci dejintaynana waxa ay tahay way u cadaatay. Dowladaynana shacabka Soomaaliyeed kuleelkooda iyo waxa ay aaminsan yihiin dowladayna way dareentay sida aan jeclahay maadaama ay madaxa meelaha ay ku dhibsanayso. Okay. Marka qodobka ugu horeeyo aan raba inaan meeshan ka dhaho waxa waa shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ogaada qof Soomaaliya lama dhiibi karo. Dowladii hadhow Soomaaliya dowladaha ka dambeey doona haddii ay marmarsii ka dhiga rabaan 2017 nin Soomaaliya la dhiibay ununka heshiiskaas ayaan tixgelinayna ma soconayso. Shacabka Soomaaliyeed ogow haddaad ogeynin golahayna sharci dejintu ogow haddaad ogeynin dowladaynay ogow haddaad ogeynin. Marka waxqabad iyo bulsho waxay horumar ugu tilaabsan karto waxaa biyo kama dhibcaan naqatay in maantay in wax la dumiyo aynan macquul aynan ahaynin. Biyo kama dhibcaanna ay tahay in hore loo socdo mooyaane in gadaal loo noqdo ay marnaba aynan macquul aynan ahaynin. Golaha sharci dejinta qodobkay qaateen waa ognahay. Shacabka Soomaaliyeed kuleelkooda iyo shucuurtooda waxay tahay waa aragnay. Dowladda Soomaaliya ayadana way aragnimo fiican ayay ka haysan kartaa jawga sida uu u dhacayo. Marka tiimkan hadda hoggaanka waxaan dhihi lahay ha cabsanina qofka bini'aadanka wuu qaladiyaa qaladna wuu dhacaa. Waxaan aayad quraana maahan. Sharci dal u yaalna waajibiseen laakiin waxaa la iska rabaa waxa inaad garawsatid ayaa la iska rabaa. Shacabka Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanadooda waxay ku faraxsan yihiin in la isfahmaa qaladna uu dhici karaa. Marka aan hore u soconno dowladayna tihiin cadow badan ayaan leenahay ununka dhaxdayna macquul maahan hadda in aan aan meelo kale aan marmarno. Qola nabaddiid oo dhehaynin kan aqoon-yahan waa dhehaynin kan waa shiikh dhehaynin kan waa fiican yahay aanan dhehaynin. Shacabka Soomaaliyeed cunuga hadda dhashay iyo halka ugu aqoonta sarreey ay isugu mid yihiin uu dilaya ayaan leenahay. Kaas waa in aan ka hortagnaa dowladdana ay tilaabo ay sii qaadaa ciidankayna la xoojiyaa marka horumarna lagu tilaabsado. Marka dadkii xilka dowladihii hore u haajira waxaan ognahay in ay arrin aynan shaqo ku lahaynin in ay faragashanayaan sida maamul goboleedyada oo kale. Arriman dibadeed waxba kaagama jiraan barowgeyga maamulaa tahay waxa horumar ku gaari karta adaa lagu madax baneeyey shaqayso horumarna gaar. Waxaana shaqadaada ahaynin ha gelin. Haddii ay macquul tahay in aad dowladda kala shaqaysidne dowladda u gudbi la wadaag fikirka aad ka qabto iyo waxa uu kuu soo kordhi karo. nin shisheeye wuxuu kuu sheegaya male dadkaada iyo dalkaada
inaad dhegaysatid waxay kaaga soo horjeestaanna aad ka leexatid waxa ay kugu ammaanaanna aad hore tilaabo aad u qaadid taas waa iga waano dowladayna tihiin cadow badan ayaan leenahay shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanada soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed cadow ayaan leenahay cunuga hadda dhashay iyo halka uu aqoonta sarreeya cid uu dhaafayo ma laha isku mid ayay ka yihiin marka dadka soomaaliyeed midnimo iyo in la shaqeeyo spiritkiina uu shaqeeyo maskaxdiinana ay shaqayso dalkaynana aan isku duubni caloolfiyaabi cadaalad nabad inaan ku noolaano asalaamu calaykum waraxmatullaahi